midowga Yurub wuxuu go'aansaday in la kordhiyo cunaqabataynta ay saareen Ruushka sanad kale, taas oo looga jawaabayo dhaqamada xasilooni darrada ah ee Ruushku ka wado waddanka Ukraine iyo qabsashada gobolka Crimea uu xooga ku qabsaday sanadkii 2014. bayaan ay soo saareen golaha midowga Yurub maalintii Isniinta ayaa lagu sheegay in cunaqabataynta lagu bartilmaameedsanayo dhaqaalaha Ruushka. cunaqabataynta saaran Ruushka waxaa ka mid ah in la xadido ganacsiga midowga Yurub iyo Ruushka iyo gobolka uu xooga ku haysto ee Crimea, iyo sidoo kale cunaqabataynta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ama maalgashiga maaliyadeed iyo adeegyada dalxiiska ee Ruushka. cunaqabataynta ayaa sidoo kale ka hortagaysa dhoofinta qaar ka mid ah alaabaha iyo tiknoolajiyadda ay midowga Yurub farsameeyaan, taas oo loo isticmaalo qaybaha tamarta, gaadiidka iyo isgaarsiinta. sidoo kale waxay midowga Yurub ka hortagayaan in gobolka xoogga Ruushku ku haysta ee lagu magacaabo Crimea la siiyo tiknoolajiyad loo adeegsado qaybo badan, gaar ahaan baaritaanka iyo soo saaridda saliidda caydhin, gaaska dabiiciga ah iyo xataa macdanaha dhulka hoostiisa ku jira. dhanka kale, cunaqabatayntu waxay diiradda saaraysaa dhinacyada Liibiya, halkaas uu Ruushku faraha kula jiro. midowga Yurub wuxuu ansixiyay wax ka beddelka nidaamka cunaqabatayntii hore ee ka jirtay waddanka Liibiya, isagoo sii adkeeyay cunaqabatayntan cusub. cunaqabatayntan ayaa waxaa lagu darayaa dadka iyo ururada loo arko inay carqaladaynayaan abaabulka doorashooyinka la qorsheeyay dhammaadka sanadkan inay ka dhacaan waddanka Liibiya. midowga Yurub waxa uu sheegay in cunaqabatayntan ay waafaqsan tahay go'aankii golaha amnigu soo saareen sanadkan. war-saxaafadeed waafayeenka midowga Yurub soo saaray ayuu ku sheegay in midowga Yurub ogeysiiyay baaqiisa bulshada caalamka iyo dhammaan dhinacyada ay khusayso ee ku sugan waddanka Liibiya si ay ugu hoggaansamaan dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee la xiriira Liibiya, iyagoo ka digaya waxa uu ugu yeedhay qaswadayaasha isbeddeldoonka ah ee Liibiya ka wada dagaalada. waa ninka loogu yeedho Generaal Khalifa Haftar iyo xulafadiisa Ruushka iyo Imaaraadka.